tababarkan oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxaa lagu baranayay u qariimidii isku xirka sidii haweenka Soomaaliyeed ugu qayb gali lahaayeen siyaasadda iyo sidii loo xaqiijin lahaa qoondada dumarka ee 30%. Tababarka waxaa ka faa'iideystay oo loo qabtay 20 haween oo ka kala socday bulshada rayidka, haweenka ku jira siyaasadda iyo kuwa ganacsatada ah. Tababarkan waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda Tubta Nabadda Soomaaliyeed, Somali Peaceland oo kaashanaysa wasaaradda haweenka Hirshabelle iyo hay'adda FCA. waxaana maalgeliyay wasaaradda arrimaha dibadda Finland. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay haweenka tababarka ka qayb galay. cashiro badan oo fiican oo inaan jaan qaadno oo aan wax ku raadsano oo meel walba aan ku garaaci karno aan odayaasha ula tagi karno oo siyaasiyiinta ula tagi karno ayay noo faa'iideeyeen. maasha Allah tabaarakallah cashir qurux badan aan noo siiyay. waxaan dhihi lahaa Tubta Nabadda Soomaaliyeed waa dhiirigeliyaasha gabdhaha Soomaaliyeed aad ay noo dhiirigeliyaan casharo muhiim ah ka qaadanay xuquuqda dumarka ay leeyihiin dhaqanka saa ula xaali lahayn siyaasiyiinta saa ula xaali lahayn sidii aan maxaan ku sheegay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintii gabdhihii meeshaan isugu yimid shalay iyo maanta casharada ku qaatay waxaa ka mid ah ganacsatada waxaa ka mid ah ururka haweenka gobolka waxaa ka mid civil society. dhinaca kale waxaa ayagana goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeefu iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cabdi Culuw. waxaan rajaynaynaa inaan u ololeyno dhamaanteen kuraastii gabdhaha ku fadhiyeen inay ku sii fadhiyaan. waxaa kale aan rabnaa gabdho kale inaan soo saarno haddii Ilaahay raali ka noqdo. waana u mahadcelinayaa Tubta Nabadda Soomaaliyeed oo markastaba haweenka iyo dhalinyarada guud ahaan bulshada barnaamijyada ugu faa'iideyso. wasiirad ku xigeenka Xaliimo waxaa la rabaa gabdhahan inaad marka nadaamkii lagu shaqeey lahaa si ay isla jaan qaadi lahayn adaan maanta ka rabnaa mas'uuliyadaas adaan ku dhiibana annagana kuwa wax maqlo oo waxay maanta inta laga baray meel marsiyo gabdhaha aqoonyahanka wax u raadsan unuku wax ma rabno waa waqtigayna waa dhamaad waa soo qaadan waa soo hilganay. ugu dambeyn wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda Hirshabelle xildhibaan Xaliimo Cali Saciid oo tababarka soo xirtay ayaa haweenka Soomaaliyeed kula dardaarantay ku dhiirinaanta ka qaybgalka siyaasadda. ka wasaaradda marka anaga waxa in garab taaganahay waa dareemi kartiin sa anaga qayb in kaga noqon oo member ay kaga nahnay taas waxay muujinaysaa diyaar ugu nahnay in albaab walba isla garaacno in aqoondadeena raadsano ma ahan kaliya kuraastan baarlamaanka ee kuraasta kale oo la magacaabo iyo kuwa xataa imtixaanka loo galo in anagii u wada orodno. dawladda ma ahan baarlamaan bis in la raadiyo in waxaa jiro agaasimayaal waxaa jiro wasiiro waxaa jira shaqooyinka wasi wada hoose siyaasadana meesha ugu horeysa ma laga bilaabay waxay rabtaa in loo fadhiyo xumeeyo hoos laga soo bilaabo. khayr Allah siiyo madaxweynaheena wuxuu markasta diyaar u yahay inuu qoondada haweenka ilaaliyo wuxuu diyaar u yahay 30% ka badan inuu haweenka siiyo. adinka marqaati iiga madaxweyne Cali Guudlaabe inuu xagga haweenka madaxweyne aad u qadariyo oo yahay. Ibrahim Ali Nur TV Universal Jowhar.